Wanku salaamay daawada ku soo dhaw muuqaalkii maalin kasta oo arbacaan kaga hadli jirnay aktarada caanka ee dunida. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa aktar Soomaaliya isla markaana caanka ah dunida kuna jira shirkadaha Hollywood. Aktarkani waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1985. 7 sano markii uu jiray ayaa dagaalkii sokeeye ka dhacay wadanka. Aktarkaasi waa Barkhad Cabdi. Sanadkii 1991 ayaa u qaxeen isagii reerkiisu wadanka Yemen ee magaalada Sanaa. halkaas oo ku noolaa aabihii laakiin 1999 ayuu guureen xagga Ameerika waxayna degeen magaalada Minneapolis. Barkhad ayaa jaamacadiisii ka galay magaalada Minneapolis koor intaan uu soo biirin hadaba saaxada jilitaanka ama aktarnimada. Barkhad Cabdi waxa uu ahaa wiil ka ganacsada telefoonada casriga ah oo waxa uu magaalada Minneapolis ku haystay tuugaan lagu iibiyo telefoonada. sidoo kale Barkhad waxa uu ahaa darawal kaxeeya baabuurta. hadaba Barkhad waxa uu ku soo biiray saaxada jilitaanka 2013 taasi oo ah markii koowaad ee uu keenay filimkiisii ugu horeeyay. filimkaasi waxa uu noqday filimada ugu caansan ee laga sameeyo Soomaalida. filimkan Barkhad waxa uu ku jilayay burcadbadeednimada. filimka magaciisu waxa uu ahaa Captain Phillips. Barkhad waxa uu ku jilayay filimka inuu yahay qof burcadbadeed ah oo afduubta maraakiibta maraysa badaha caalamiga iyo badda Soomaaliyaba. hadaba intuu filimku socday waxa uu Barkhad soo afduubtay isla markaana uu ku jilayay inuu soo afduubanayo marka Mareykan. filimkan waxa uu ku helay lacag qeyr ilxada taasi oo ka dhigtay atoora caan ah oo indhaha caalamka u soo jiitay. Barkhad filimka Captain Phillips waxa ka soo galay lacag gaaraysa $65,000. Barkhad sidoo kale 2017 waxa uu keenay filimkiisii labaad isla markaana uu ka soo muuqday waxaana uu filimka ku metelayay hogaamiye kooxeed. filimka magaciisu waxa uu ahaa Hawaii 05. sidoo kale atoorahan Soomaaligii 2017 waxa uu keenay kale filimkii la oran jiray The Pirates of Somalia oo uu ku jiray magaca Cabdi. 2018 waxa uu keenay External Journey of the Fakir oo uu ku metelay magaca Huraaj. A Girl from Muqdisho oo uu ku metelay magaca Xasan. sidoo kale 2020 waxa uu keenay Beneath a Sea of Light oo uu ku metelay magaca Aways. sidoo kale aktarkan 2022 hadda ku jirno waxa uu processki ku jira ama oo filimka uu soo wada yahay Toysan Isran oo uu ku metelayo Al-Kulub. atoorahan Barkhad waxa uu ka qayb qaatay dhulal badan oo lagu urniyo dhaqaale dad iyagoo ku tabaalaysan abaaraha Soomaalida. Barkhad nabarka wajiga kaga yaala waxa uu ka soo gaaray shil gaari koor inta aan la daabicin filimkii Captain Phillips ee uu keenay horaantii 2013. daawad ku maasan daawashada muuqaalkan nagu soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran Ishaara Channel.